الله وبركاته maanta barnaamijkeena haya barnaamij runtii aad iyo aad u xiiso badan runtii barnaamijyadeena waxaan jecelahay mar walba inaan ku raaxaysano sababtoo ah midba midka kale ayuu ka sii macaanaanayaaba maanta waxaan noo hayaa barnaamij 10 hab dhaqan ee ay leeyihiin dadka guuleysta haddii ay wax isku ka toosulayihiin fadlan barnaamijkan daawo waxa laga yaabaa inuu ku anfaco dadka guuleysta waxa ay leeyihiin meel ay raacaan ama hadafyo ay ku wada tiirsan yihiin dadka badankoodu 10 kamid ah insha Allah soo qaadanayna kow kicida aroor hore waxa la tijaabiyay research badan oo la sameeyay daraasad lagu sameeyay wadanka Japan ayaa waxa lagu tijaabiyay in qofka kaca waqtiga aroortii hore inuu kale ugana dhow yahay guusha qofka aan hore u kicin laba in dadka ay sugin ansixin inay dadka ka sugin wax ansixina ama moogtaadeen inay dadku wax la qabtaan ama wax u ansixiyaan ama wax u yeelaan aanay ka sugin ay iyagu wax walba isku dayaan inay qabsadaan ay dadkana ka kaaftoomaan inta ka kaaftoomi karayaan saddex inay fashilka u arkaan fursad sababtoo ah ninkii laambada sameeyay ee Thomas Alva Edison markii uu guul dareystay waxa uu yimid nin oo weydiiyay oo ku yiri Thomasow waxaad ku waalatay amboolkan ama laambadan aad sheegaysaa ama ikhtiraacana sameynayso ee maxaad bal ka faa'iiday oo aad moogtaada intaas oo dhan isku daalisay kabacdi waxa uu ku jawaabay Thomas waxaan ka faa'iiday intaas oo dhan waxaan ogaaday habab badan oo aanay u bixin laambadu ama aanay u shaqeyn waxaan wuxuu waday hababka badan ayaa iga caawinaya inaan horumar gaaro runtii dabcan waan kii gaaray ee u bedelay habeenka inuu dharaar ka dhigo oo laambadan hadda aan ku naaloonayno oo dhan waxa ka dambeeyay ama ikhtiraacay isaga ayuu ahaa afar wax akhrin joogta qofka guusha badan leh badana waxba akhriyaan u fiirso soo dhigana shaashada dadka adduunka caanka ka sida Elon Musk Jeff Bezos dad aan la soo tirin kareyn oo dad iyaga adduunka uga hantida badan la badana waxa ay waqtigooda ku lumiyaan wax akhris waana qodob aad iyo aad u muhiim ah oo xoga badan ayaad ogaanaysaa ganacsigaagana waa sii horumarinaysaa shan hore u socosho dadkani ma yaqaanaan dib u noqo sababtoo ah haddii ay qasaaraan calaacal ma galaan ee waxay isku dayaan inay dhibaatada xaliyaan ay si wanaagsan uga baxaan meesha lix caawinta dadka waxa ay ku wanaagsan yihiin caawinta dadka sababtoo ah qofka guuleysta marka uu walaalkii gacanta qabto ee uu taakuleeyo ayuu isna wax noqon karaa toddoba waxay leeyihiin hadafyo ama yool dadkani waxay leeyihiin hadaf ay higsanayaan tusaale haddii aanad maanta leedahay ganacsi iska furan aad noolaatiduun kaasi kamay dhigna inuu ganacsigaaga sabarta dhaafi karayo sababtoo ah malahid yoolaad higsato matalan maanta haddii aad leedahay gaari yar oo ku xamaalato oo higsanaysa inaad gaarigan wax dhaafsiisanaad shaqaysato wad awoodaa waa haddii aad yool leedahay ama hadaf aad leedahay dadkani waxay leeyihiin yool ama hadaf ee uma shaqeeyaan iska xamaaluun oo ku noolow nolosha sideed qaab xiriirka wanaagsan ee dadka kula leeyihiin dadkani qaab xiriir wanaagsan bay dadka kala dhaxeeyaan ama way wanaajiyaan oo waxay isku dayaan mar walba inay dadka wanaajiyaan si ay dadku uga arkaan fikrad ah inay dadku wanaagsan yihiin oo wax wanaagsan ay ka qaataan sagaal aaminida naftooda sababtoo ah dadkani aad iyo aad bay naftooda u aaminsan yihiin inay wax walba qaban karaan ama ku guuleysan karaan halka cilad ee ay jirtaa ee ay leeyihiin dadka ula imaada fikrada negative ee ku yiraahda waxaas ma qaban kartid halkaas cilad ay leeyihiin laakiin naftooda aad bay u aaminsan yihiin wax walba inay qaban karaan naftooda way ka dhaadhiciyaan haddii aad adigu ka dhaadhicisana wax walba waa macquul 10 waxay diiradda saaraan halka sababtoo ah maanta dhibaato ayaa dhexda kaga jirta ama waxba kugu dhacay dadkani kuma mashquulaan wixii dhacay iyo wixii qalad ka lahaa ee waxay ku mashquulaan sida xalku yahay ama sida wax ku hagaagayaan barnaamijkeena insha Allah intaas uu ku kooban yahay waxaan rajaynayaa inaad ka wada faa'iideen insha Allah idinkuna waxaan rajaynayaa inaad qaybta faalada noogu reebtaan wixii filcelinayna id ka soo sameeysan barnaamijkaas aad iyo aad baan idin salaamayaa saaxiibayaal intaynu ku kulmi doono barnaamijkan